السلام عليكم daawadayaal safarkan waa mid aad u xiiso badan oo aynu ku tagi doono dal ka mid ah dalalka kuwa ugu saameynta badan caalamka haddaba daawade boorsooyinkaaga xidho si aynu uga degno goob aad u xiiso badan oo ku taalla meel ka mid ah daafaha dunida Indonesia waxa ay ka mid tahay dalalka ugu saameynta badan dunida uguna awoodda badan waxaana u sababa dhaqaalaheeda aadka u xoogan iyo tirada dadkeeda oo aad u badan waa dal jasiiradeedka ugu baaxadda weyn dunida ahna dalka 14aad ee caalamka ugu baaxadda weyn sidoo kale waa dalka afraad ee ugu dadka badan dunida ahna kan saddexaad ee ugu dadka badan qaaradda Aasiya tirada dadka ku nool waxa lagu qiyaasaa 270 milyan oo qof waa dal aad u dad badan oo uu korayo tirada dadkiisu marka laga yimaado inuu yahay dalka afraad ee caalamka ugu dadka badan sidoo kale waa dalka ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan dunida 225 milyan oo muslimiin ah ayaa ku nool dalkan waa dal kala duwanaanshiyaha isirka afka diinta iyo dhaqanku aad u badan yahay waxa la tilmaamaa qoomiyadaha Indonesia ku nool inay tirahaan ka badan yihiin 600 oo qowmiyadood loogana hadlo in ka badan 700 oo luqadood balse dalku leeyahay hal luqad oo nidaamka dawladdu ku shaqeyso oo ah luqadda Indonesia waa isku fahmaan dadyowga kala afka duwani in ka badan 200 oo milyan oo bulshada dalkaas ah ayaa ku hadla luqadda dalka 630 qowmiyadood oo Indonesia ku nool waxa ay ka dhigaysaa mid ka mid ah dalalka leh kala duwanaanshaha isirka ee ugu badan caalamka 700 oo luqadood wax ka badan ayaa laga hadlaa gudaha dalka Indonesia taas oo u dhigmaysa 10% guud ahaan luqadaha dunida qoomiyadda Japanese-ka ayaa ah qoomiyadda ugu dadka badan guud ahaan Indonesia qoomiyaddaas oo dalka ka ah 41% kuwaas oo tiri ahaan dhan 100 milyan oo qof waxaana degaan jasiiradda Java oo ay ku nool yihiin in ka badan kala bar dadka reer Indonesia dadka ku nool jasiiradda ayaa gaaraya ilaa 150 milyan oo ruux waana jasiirad baaxad ahaan ka yar gobolada bari iyo sanaag ahna jasiiradda ugu dadka badan dunida Indonesia waa dalka ugu dhaqaalaha badan wadamada muslimiintu ku badan yihiin ahna kan 14aad ee caalamka ugu dhaqaalaha xoogan waana dalka shanaad ee ugu dhaqaalaha fiican guud ahaan qaaradda Aasiya ahna kan koobaad ee ugu dhaqaalaha wanaagsan koonfur bari Aasiya Indonesia waa xubin ka mid ah kooxda 20ka ah ee warshadaha ka horumartay looguna yeedho afka qalaad G20 dalkaas 630 qowmiyadood ku nooshahay ee 700 luqadood wax ka badan laga hadlo ee dhowrka dimood laga haysto ee shanta dal ee caalamka ugu weyn ka mid ah waxa ka dhaxeeya hal sharci hal luqad hal dastuur iyo hal calan iyo hal nidaam waana dalka saddexaad ee dimuqraadiga ah ee caalamka ugu dadka badan marka laga tago Hindiya iyo Mareykan Jakarta waa caasimadii magaalada ugu weyn dalkaas Jakarta waaxigeeda iyo inta uu soo shaqo tagta marka la isku daro waxa ku nool dad lagu qiyaasay 35 milyan taasoo ka dhigaysa magaalada labaad ee ugu dadka badan dunida kadib Tokyo waana xarunta ganacsiga aqoonta halabuurka dhaqaalaha maamulka iyo dhaqanka ee Indonesia iyo guud ahaan koonfur bari Aasiya waxa ay magaalada Jakarta oo quri ka dhaqaale badan tahay isku darka dhaqaalaha Kenya Ethiopia iyo Uganda Indonesia waxay noqotay
mid ka mid a dalalka ka dhaqaalo badan dalkii gumaystay. Netherland oo hore u gumaystay dalka Indonesia maanta dhaqaale ahaan, ciidan ahaan iyo wax soo saar ahaanba waxaa ka horumarsan Indonesia.